odayaalka walgorodka balanta iyo dhalinyarada degmada Ceelberde iyo waliba eedan jeediyana maamulka degmadaas Ceelberde iyagoo ka eedayan musuqmaasuq iyo maamul xumo iyagoo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku dalbaday in wal ku qabada isbedelna la ka sameeyo maamulka degmada Ceelberde waxaan halkan cabasho ka soo gudbinayaa maalmahan baraha bulshada aad looga hadalhayay odayaasha deegaanka waxgaradka dhalinyarada dhammaan siyaasiyiinta qaybada kala duwan ay cabasho ka soo gudbiyeen gudoomiyaha degmada Ceelberde haadi aniga waxaan ka mid ahay dhalinyarada saadarteed waxaan dawladda Koonfur Galbeed ugu horeeyay madaxweynaha Cabdicasiis Lafta Gareen oo hadda ku sugan gobolka Boqol degmada Xudur ka codsanayna in uu arintaas soo farageliyo oo wax ka qabto dhibka ka jira degmada Ceelberde waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Soomaaliya waxaan u sheegaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Koonfur Galbeed waxaan u sheegaynaa gudoomiyaha gobolka Boqol magaaladu waxa loo yaqaanay Ceelberde dadkeedu waxa la dhigi jiray ruuxan waa Ceelberde haddana waxay taagan tahay in lagu kala guuro magaaladu caafimaad ma leh maxaan ku yiraahdaa isgaarsiin ma leh biyo ma leh waxa weeye waxaan haystaa maashi low waan ku jiraa hal sano waxaan ku jiraa maashi low waxaan dawladda ka codsanaynaa in laga dulqaado dhibka ay sheeganayso degmada Ceelberde bismillahir rahmanir rahim gudoomiyaha degmada Ceelberde Maamur Ahmed Hamid iyo qofka hadaloohay sida ma ay tahay ku abado haynay ba lan kala araw haadi gudoomiye haadi gudoomiye anisa gabalku aniga kooy Ceelberde haddana way sameeyba inii maashilow ni xukum wal maamula ila shaqeeyo maleeri wal oodad weyna ila shaqeeyo maleeri magaaladii shaleedaya marna yaanha kaarkaas ana galanta ka hay ayantii Cabdicasiis Lafta Gareen la dooradayaal dawladda wasiirka arrimaha gudaha ee la hayso si la haysiina ma shaqeyna والأوسي ما رجعوا كا سوكتر صدم مديته دولة ويقصانه هي أمضة كوفر قلبي يفضل ألبا إني هادي النقاط. الدنيا أنا حين مدارد حقوق هايستا عبشاء وحن أتشهدين هنا دولة المدى يمكن ما هيو حلو ما هيو wuxuu u joogaa magac been oo dawladeed uu dadka ku leenayaa wax naga qaban haya ma jirto shacabka baan nahay dadkii dariska ahaa magaalada Ceelberde dadkeeda Ceelberde ahaan jiray haddana yahay dadku kala furfurahaya dadkii uu kala dirahaya dadkii uu kala dirahaya dadkii uu kala qabayleynaya waxaana waa dan asaga shakhsiyaan kaliya ah marka cabasho dawladda waxaan ka cabanaynaa ninkan ay noo soo direen ay noo keeneen ee musiibada inay naga bedelaan oo naga qabtaan muddadii in ka dambeeyay waliba habadaayay eeday meelan jeediyo maamulka degmada Ceelberde ee gobolka Boqol